Waa nin 40 jir ah, shaqo walba uu qabtana ku guuldareysan jiray noloshiisa. Naagtiisii way ka carartay, saaxiibadiisna way jareen, waxa uuna go'aansaday inuu dadka ka fogaado. Balse si lama filaan ah ayaa guuldarooyinkiisii badnaa isugu beddeleen guulo lama filaan ah, isagoona helay malaayiin doolarka Mareykanka ah. Brendan Gareen waa nin ka soo jeeda waddanka Ireland, waxa uuna dhashay sanadii 1980-kii. Waxa uuna dugsi sare dhameeyay 1998. isla markaasina waxa uu ku biiray kulliyadda farshaxanka isagoona rajeynayay inuu noqdo nin wax matala. Balse markuu dhameeyay waxa uu ku fashilmay inuu horumar ka sameeyo xirfadii uu bartay. Sida uu sheegayo isagu, waxa uu raadiyay xirfad kale oo ku shaqeysto sida inuu sawirada hagaajiyo iyo inuu barnaamijyada soo saaro si uu noloshiisa ugu maareeyo. Haddii uu waddankiisa horumar ku gaari waayo, waxa uu go'aansaday inuu u safro waddanka Brazil isagoona halkaasi ka bilaabay sawir qaadida iyo inuu daawaco buugaagga website-yada. Balse nasiibka ayaan saacidin, sidoo kale xirfadaana uu ku fashilmay. Markan waxa uu go'aansaday inuu noqdo musician, waxa uuna alifay tiro albumna ah. Balse nasiib daro sidii kuwii hore si ka daran ayuu midana ugu fashilmay. Xaaskiisii iyo dadkii hareerihiisa taagnaaba way ka kala carareen, waxa uuna gurigiisa ku soo haray isagoo wareersan. Balse sida caadada u ahayd, ilaa 8 jirkiisii waxa uu guda galay inuu game shito isla markaasina iska yareeyo carada. Xiriirka uu Gareen la leeyahay game ciyaaridda waxa ay soo bilaabatay ilaa carruurnimadiisii, waqtigaasi oo la xiisayn jiray game-ka lagu magacaabo Atari 2600. Sagaashameeyadiina waqtigii uu kombiyuutar ku soo baxay, waxa uu suurta gashay inuu kombiyuutar soo gato si uu ugu ciyaaro game-kii xilligaasi la xiisaynayay ee Doom. Bartamii 90-kan waqtigii uu internet-ku soo baxay, waxa uu u wareegay geemamka la xiriirsado oo ugu horeeyo game-ka lagu magacaabo Delta Force. Balse muddo ayuu ka maqnaa game ciyaaridda, intaasi oo uu ku mashquulsanaa shaqo raadis iyo jaamacad iyo inuu guursado. Kadib markii ay xaaladiisii shaqeed iyo midiisii guurba ay ku adkaatay, waxa uu dib ugu soo noqday game ciyaaritaankiisii. Waqtigaasi uu socday game-ka shaashadda laga maamulo ee Armato. Markan Gareen isagoo ka faa'iideysanaya khibradiisii gameed, waxa uu ka codsaday shirkaddii game-kan iska lahayd inuu wax ku soo kordhiyo game-ka. kadib markii laga aqbalayna waxa uu ku soo daray shirqoole aad u tiro badan oo isla markaasina ay u bogeen. Sidoo kale geemo badan ayuu fikrado kala duwan ku soo kordhiyay, dhab ahaantiina fikir walba uu keeno waxa uu ahaa mid guuleysta. Gareen weli ma uusan soo saarin game uu isagu leeyahay, balse xoogaa khibrad ah ayaa u kordhay. sidoo kale waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka geemka sameeya, waxa uuna kala tashtay si uu u sameyn lahaa game caalamka oo dhan gaari kara. Brendan uu ka helay fikirka inuu game sameeyo, balse waxa uu isweydiiyay muxuu noqon doonaa game-ka uu soo saari doono. Isagoo ka fikiraya arrinkaasi ayuu maalmaha ka mid ah daawaday filim Japanese ah oo lagu magacaabo Battleground, kaasoo ka sheekeynaya koox arday ah oo la isugu geeyay jasiirad kadibna loo sheegay inuu midba mid kala dilo, kan u dambeeyna uu noqon doono guuleysto. Filimkani ayaa saameeyay Brendan, waxaana durbo maskaxdiisa ku soo dhacday fikirkiisii ahaa game sameynta. Kadib waxa uu hore ka soo aaday shirkad Korean oo caan ah taasi oo game-ka sameysa, waxa uuna u soo bandhigay fikirkii uu watay, isagoona u sharaxay game-ka una sheegay inuu game-ku u dhaxeeyo nolol iyo geeri, ama noolo oo guuleyso ama ha lagu dilo oo guuldareyso. shirkaddii way ka aqbashay waana la sameeyay game-kii, waxaana suuqyada caalamka lagu faafiyay sanadii 2017. ayaamihii koowaadba game-ka waxaa laga dareemay guulo caalami ah marka la eego dadka la soo degaya. dhanka moobeeladana 2 milyan oo qof ayaa 60 beri gudaheed kula soo degtay. Brendan 4 bilood ugu horeysay kaliya ayaa waxa uu soo xarootay adduun lacageed gaaraya 200 oo milyan oo doolarka Mareykanka ah, intuusan noqon game-ka adduunka ugu caansan looguna ciyaarista badan yahay. daawade aragtidaada nala wadaag, ma tahay mid rumaysan oraada ah Ilaahay uu kuu sahli karaa shay ku ilmaamsiiya dhibaato walba aad soo martay.